وهاجا كلنتي وعنا وناكسن طبعا داوديال meel kasto naga daawanaysaan oo mar kale iyo barnaamijkeena fanka iyo fagaaraha toddobaadkan martii ay noogu yihiin kooxda DKBG oo talaabo uga barateen muuqaal aad u qurux badan iyo sidoo kale dhaantooyin aad u macaan طبعا داوديال barnaamijku goobta ka socda waa hotel Adamis ee magaalada Hargeysa barnaamijka waxa si wada jira idinku daadihinaya aniga mataanteeda Maxamed Xuseen oo markad aniga ay aragtaan marnaba aniyana baashida laga waayay وهاجا داوديال waxa mar kale idinku soo dhaweynayaa barnaamijkeena fanka iyo fagaaraha عليه تضبط كحيس بدن هبين كوايا iyo wax darba duwan habeenkani waxa barnaamijka noogu martay isla markaasina ciyaar aad qurux badan noogu soo bandhigo doonto barnaamijku socdo kooxda DKBG oo dabcan uga barateen ciyaar aad u xiiso geliya kuwii iyo qaar ka seexda xiiso badan ba caaweedin haya waxaan gali doonaa qaybaha kala duwan ee barnaamijkeena markan waxaan u baaqi doonaa gudoomiyaha kooxda وهاجا gudoomiyaha kooxda Umar أحمد حرة ونوجا مهد علينا يصير قروح بدن سجى كوح ديسبة أي برامج كرنانتي قيب تلحاد كلا وقاعدنا يعني عمر كسر عمر كوجورس برامج كا هذا كوح هذا بقى. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا آد بمر على الجدوة هاي ومن هاي أنا جا كوح هذا برامج كادي آد بنجدونا هاي. إن فرحت من بيتها ترنانتي يعني يو متانتي دبا إن مركلة عن مركب كبار عن كنا لقاعدنا كوحدة DKBG يدون أرجعني مرة بدن كوحة كله بس تطبيقات كان معلومه وجود بيه يدور سوشيال كهيسته كوحدة DKBG فرحت من بيناتها إن برامج شيء أي ما أنت مرتكو أي عاو مرتكوين إن عمر بالهذا كوحدة أساس كذي يس إن سيدو أساس ده يهلك كسب لو ده أنا جيت أودي شباب إن تفاتيرنا بس تجدون عادي عاد بعد ما هتصنت من الخير يعني عادي عاد ما هتسيهن لما كوحدنا عادي عاد ما هتصنت هاي نهارت ولا بعد ما هتصنت وارن كوحدة DKBG ساعات شكتي وحوي مقال كقرح بدل لا أديكون عادي عاد بدو ما هتصنت برامج كفنك فقارها نقص معسونتي حتى نكور بحيو كوحدة DKBG كل كوحدة DKBG واحد كده ستة مقالة هركيسة كارهانا دقمة محمد موجي kooxdan waxa la aasaasay 2017 bishii 8aad 15 baan aasaasnay alxamdulillah maanta waa ta halka marsiya heerka maraysa kulli waxa ay idin sideeyade waxaan ku ciyaari doontana weyn wada daawan doona marka barnaamijkan aad baan ugu soo dhawnahay walaal waan kaaga mahad celinaa adiga iyo nimcaba عمره مركز كوحدة أساس أما بعد واحد كست أستغنيس كل واحد كست وحلين عقبات يوحنا عقبات هاي كوحدة أساس كذا وعقبات عقبات نحاول الوي مادين وأنا كجودبني عقباتها يجي ما حكمدها إن أنا برشيد إنه عادي عادي وحن كوري وودك رانين أرمها دقنك سيبوا لو حاجة هوانك عقباتها نجاهزتا مركها وحويان كل عقباتها markii aanu asaasaynay waxa weey in badan dhalan yaabanada waxay lahaayeen kooxdan dhalinyarta meel isugu tagsa waa sidee baa loo gaari karaa oo kale intaas hadafka dheer ee loo gaari karaa marka adigu alxamdulillah waan ka midaynay fikir midaysan iyo waxaan ku qoray han midaysan baan kaga gudubnay caqabadaha kullay inkastoo nagu sii jiraan wali waxa dumarka caqabadaha yar haysteen aad baan idinku dhiirigelinaynaa anaguna in dhaqanka aad ku adeegtaan وهاجاك داوديال برامجكو ولي برتان كاين كاga jirnaa imika yaatan waxa noo soo qabanaya kulay daawadayaashu waxay sugayaan dhaantooyinkii bartaan kooxaha dabcan waxa noqon doontaa tasashar faqada kulay waxaad maqli jirtay qaaraya waan in shakhsiyaad hidahay dhaqanka u gaarina qaadan laakiin sidoo sharaf ayaa dhaantadana qaadaysa waxaan u maleynayaa kala duwan inay tahay kala duwan waxa leeyahay maraha dhaantooyinka way ka duwan tahay stage-ka daawadayaasha ayaa idinku sugay somaray burtadala yamay iyo dagalkii lasxaano deegankii tagdheeriyo dunyada ku dhaqanayna inta damal harweyne daayuu ku dogsanay kala daran dalkanu ya dalxiisku somaray burtadala yamay iyo dagalkii lasxaano deegankii tagdheeriyo dunyada ku dhaqanayna inta damal daayuu ku dogsanay inta doobi xormo ka helay
helaya ducaan dal galbeed la bariyay deegaankeenu waa nabad dal shisheeye iyo dibadeey wale kuguma darsado kama dudo kumana dure kuma darshaabidkay inta toobi xor mudaniyo oo ka helaya ducaan dal galbeed la bariyay deegaankeenu waa nabad dal shisheeye iyo dibadeey wale kuguma darsado kama dudo kumana dure kuma darshaabidkay daabkiyo nimcada dalka badhigay maar unbaan ku tegay oon ku dirsan abidkay daabkiyo nimcada dalka badhigay maar unbaan ku tegay oon ku dirsan abidkay deegaankii gabilay daybadiisu wacanaay inta damba lahar weyne daayuhu ku joogsanaay kala daran dalkanu yaa dalxiisku soo maraay buurta sawdasheediyo iyo degalkii boramaay deegaankii gabilay daybadiisu wacanaay inta damba lahar weyne daayuhu ku joogsanaay degma weliba herkeed karti iyo dadalkay dalka nabadka mudanta diiwaanka ugu qoranayo deeqiyo wax soo saar waa dagaal ku caanbaxayo gobolkayga doocaan dalka waa ku filayahay degma weliba herkeed karti iyo dadalkay dalka nabadka mudanta diiwaanka ugu qoranayo deeqiyo wax soo saar waa dagaal ku caanbaxayo gobolkayga doocaan dalka waa ku filayahay daabkiyo nimcada dalka badhigay maar unbaan ku tegay oon ku dirsan abidkay daabkiyo nimcada dalka badhigay maar unbaan ku tegay oon ku dirsan abidkay waa hagaag daawadii aan arkaynay wacdarihii ay noo soo bandhigeen kooxdii dhaantada cajaayibka ahayd ay soo bandhigeen wana la arkaysa anaguna waan arkaynay gooraha baha ka nanoonay iyo malkhayrba ajiibtii jaata bas ku leelayna markii say isku idaarani ayaa iyo waxa ku jira haddana ka ku jira la isku idaarani ama waxaan mala qof madax la geliyo oo dhinaca sidoo quruxda badan ee qaab kale ay magaca ay say isku idaarani ma laga isigiyo gudoomiye ku xigeenka kooxda horta Naciima say fariisanaysay wadida hagaag daawadayaal waxay noo sii socon doonaa barnaamijkeena fanka iyo fagaaraha markani su'aalaha ay dib ugu noqon doonaa waxaan wareysan doonaa gudoomiye ku xigeenka kooxda Naciima Axmed soo dhaw gooraha baan kula socdo aniga waa islaha talantaa ka Naciima u tagtay fasada ciyaartaan waxa saayint arbi ka badisa shukran nimay walaalaad baan ku salaamay waana mahadsan tahay waana dhawahay kun jeer aad baan ugu faraxsanahay barnaamijka ku kulano adigii kooxda quruxda badan ee gudoomiye ku xigeenka aad u tahay waa hagaag shakhsiyan ma ka bilaaway su'aalaha Naciima hoti inta bad maanta kooxdan bad la bilaawatay tahay dhaqanka mise way kaaga horeeyeen may xabiibti iga horeeyeen kaaga horeeyeen ha saxadan waxa lagu mooday ilaa markii la bilaaway daatooyinka aad ku jirtay fahankay ku xiran tahay ma sha Allah Naciima caqabada gaar oo kooxda ka intaad ku jirtaa marxalad kan weyn aad haysay caqabada gaar oo kaaga yimid oran kartaa ilaa caqabadaha saalamay laawana wana la wadaag kartaa aniga daawadayaasha ta ku daawanaya kulli nimay aad mahadsan tahay horta wax kasta oo qabataa ma xilahaata ma wax kala haatee caqabado kaaga imanaysa run ahaantii intan kooxda ku jiray caqabado fara badan amaan xilka hayo ama wax kale horta way iga yimaadeen sida hore inoogu sheegay gudoomiyaheena Cumar Axmed Hore kulli daanu ana inanoo shakhsiya haddana si uu yara xunta marka la yiraahdo inantii heblaaya dhashay urur bay ku jirtaa taasoo kala markad ka soo qaadato ha ku jirta taa way kaaga imanaysaa sidoo kale ururkeega horta wallahi waa urur maanta oran karo inaba ma qiyaasi karo heerku maanta taagan yahay ma sha Allah aad baan idinku hambaleynayaa si wada
uu soo kacaa kufay laakiin maanta guusha ugu fiicneed buu taagan yahay caqabado fara badan oo kala kulmani waa jiraan kole waxaa la yidhi wax waloo la bilaaway caqabada la kowsada laakiin guusha way dambaysa sidaad noo sheegtay nicima haddaan kaa weyda dhinaca dhaantooyinka amba dhaqanka ciyaaraha dhaqanka ma jiraan ciyaaro markuu qofku soo geliyo sidaas looga dhigo la yidhahdo ciyaarahaasi ku bilow deeto kuwa kala gudbi doontaa mid ka midana looda way jiraanoo markaad practical tahay waxaa jirta markan dee waxbarasho dhiganayno seeska ugu horeeya wax laga soo bilaabaa oo qofka dee ilaa iyo waxa uu fahmo waxba looma sii wadi karo way jirta maalinkan ururka soo galay cagta iyo sacabka maan qaadi aqoon laakiin marka ugu horeysa atashan wax lagu dhawa lagu baraya atashanka waxaan u yaqaan soo wax kala ka dhacay atashano waxa la yiraahdaa 3 jeer oo marka hore sacabka marka dambena 4 baa ka dambeeya afarta minta marka faanto cagta kugu xigta the process jaranjarooyin wadaad kooxahantina marka la eego soo sheegtay ma koox caqabad kala duwan la soo kulantay balse imka ka joogo guulo badan sidaan arkayno ciyaartii koowaad ba madaanu fadhiga ka dhici gaar oo laba kooxda waqtiga waxa la rayaa la saa'ira wadaad nicima xilkada haysaynan han aad buu culus yahay kulli waxa la yiraahdaa hablaha inamada kaga fiican xagga shaqooyinka laakiin waxaan noo cadaysan hawl kartahay oo inta caqabada kugu timaado mooyaane inta kale ku filan tahay ما شاء الله كل هبلها كلا فكر كذا ويكون قوان سدا قروح ذا بدنا إلا بستي بكم وقتها كل واحد وجوه ريد كوحدة كجوها بينتها كوحدة بينتها هذه كل السنة هاي يروح وجاي تجيب تودين تودوس سليه إن ما دنا أركيه كنا بيلاوي أبدا يا رسي وهجاج ده هذا لبعض كوحدة ما خير أيه نوصل قمطتها وهجاج وحنوصل قبل يردان هذا لبعض وأنا قلنا هانتي مركي كوحدة كمان نبغى نقطة يجي دكاري أنا قلنا هانتي هذا في السنة وردان هذا تكتيجة aad baan dhaantadaasi qaabka ugu ciyaartaan iyo maxaa hayso sida isku haysataan aniga runtii ay soo jiidataa marka dhaantadaasi caawaliga ayaa wata umar khadid baan wata laakiin ana ka dalab horeeyay laakiin tayada balwaan haka daban dhigayaayo waa ciyaar silic wala iga horeeyay ma ka wanaamsanay ciyaar silicda baarad bakala isla helayo inamadii hablo isweydaaranayeen dhaqamadii hore aad xasuusanaysa ciyaarta dalabka in horeysin doona ee jigjiga kooxda iyo daawadayaasha iskaga bixino kadib isku soo noqosho haboon Mashilai lisanada Kabiti witau kamandari Gasidashilai zuri zuri Jijiga, jijiga, jijiga Yajijiga lij, konjo aite Yajijiga lij, konjo aite ተሸነፉኝ ወዳጆቼ ባንዲት ሰዓት ተጠምጄ የትጅጋ ልጅ አንቺ ቆንጅዬ የትጅጋ ልጅ አንቺ ውብዬ ልበልሽ ቢአን አንቺ በይሃዬ ልበልሽ ቢአን አድናቤ ሃዬ ነተዋንን ሲኤምሲ ተገበይተን እነፋሲ ሱቅየሬ ጨራበቱ Quando esazertu molto e le era l'anta ulai Ando mirada Archilla shekurse Shekari gure magase Ubatu Ubatu No betu Ubatu No betu Ubatwa No betwa Ubatwa No betwa Sarı
አሳየኝ ናቶ ምቱ ጂጂጋ 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 ላወድስ ልቀን የለሽ ሁሉም ማራኪ እንከን የለሽ ህብር ፍቅርን ሁላደለሽ የሁሉም አድባር ታዛ ኮነሽ ጂጂጋ 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 ሳዳሽ ልዩ ቆንጂዬዋ ውብነሽ በጣም ሶማሌዋ ይሁዴ ሁዴ ላጨዋትሽ ተረጅልኝ ፍቅሬ ባክሽ የጅጅጋ ልጅ አንቺ ቆንጅዬ የጅጅጋ ልጅ አንቺ ውብዬ ልበልሽ ፊአን አንቺ በይሃዬ ልበልሽ ፊአን አድነቤ ሃዬ ጎማታ ብሌለሌ ሰኩሽ ወዳጅ ዘመዶችን ይዤ አየተጋበት ሐሴ አቤት ያለው ግስጋሴ ወራቦ ሰላም ጅሜጋ እንገናኝ ሙሉ ፎጋ አብራ ጎዳና ገባሳ አቤት ፍቅራቸው ሲነሳ ውበቱ ነው ቤቱ ውበቱ ነው ቤቱ ውበቷ ነው ቤቷ ውበቷ ነው ቤቷ ሲቲ ዶሎ ቆራሒ ፋፈም ቻረር አብደል ኖጎ ሸበሌ ሊበን ሁሉ ፍቅር 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 وهاجاك داود يعني أنت السعودية عيارتي تشجع إن ولي يرباني جنده يكرت كوه مقلب له إلى دماء إن عبد الرحمن يره صدوا هبير دوي عبد الرحمن أو إن عياره هدا هدا كمان تاجرتها مهم يجاجا إن عيارتي كهريسي ودفردي كل عيارتي تشريبا تشجع كان مقشة سوب وحد مودي رير تشجع هذا هاي عبد الرحمن يرى أنا بس كتوخة عبد الرحمن اسمه هذا المرض عبد الرحمن كذا سيدي عند الدكتور عضي يا سيدي كان سناو صورة عادي تكتيكين كتوخة تكتيا تيجي تدور عبد الرحمن مالو إن قمت برتي سنة عيارتي ضد كان كوا وين سي عياريان بالقاب كودي لهاي قمت برتي waxaan bartay ururka soo gala baa la baray marka uu ka soo gashay lagu baray uu ka cagaa kun soo loo keen ay aan walaasho keentay ayaa ku keen ما شاء الله صح macalinkayga magaciisa waa xarir حرير صح aad baan kugu hambalyeynaya habeer adagoo da'yar bad leedahay aqliga dadka waaweyn dabcan sidoo jigjigasay horta uu idila keena aad baan kugu mahad celinaya وهجاك داود يا الولي وحنا برتن كجرنا وبرنامج كني فنك يفجارها أو كسعودة هوتيل آدمس برنامج كوحد كلا سعودها وهانيد ميديا وحسي خاص برنامج وجم هالنقية وبهذا دمان بهذا بهوينتا إن حياته هوتيل آدمس أونلاين هاي الله يدي شرف دمان تيمبا إن إما كانوا حنصر نقنية قدومي هراك واحدة إذا كابليتي oo isagu dharaarahan baalka suuqan qornay iska soo horeysiyay gudoomiyaha imika waxaan leenahay waa lagu qabtay meesha waxa ku dhan gudoomiyay hadda iyo kii horeba caawis ka soo kaxaysatay in gudoomiyaha sayid ku soo dhawaan ku leeyahay barnaamijka fanka iyo fagaaraha in adiga laftarkaaga aad baan kaaga mahad celinayna sidoo kooxdaada soo raacday una xasuusan tahay anagu waan kugu dhiirigelinaa kooxdan halka kaga iman ku leenahay in sayid kooxda waxaad ahayd gudoomiye in imika marka kooxdii horta bal intaynan imika la isbaranaya
anagii daawadayaashu imkaan ku baranaynaa maadaama tahay gudoomiyihii hore kooxdun baa uga ka ha dabcan sayid kooxda weli maad ka tirsan tahay oo xilkii gudoomiyenimo uun baad iska qaaday mise waad ka baxdo dhiirigelin uun baad dibadda aad uga haysaa aad iyo aad baa mahadsantihiin horta ilaahay subxaana wa tacaala mahad iska leh marlabaadka horta aad iyo aad baa mahadsantihiin waxa weeyaan dhammaan ururka iyo haytoy TV-ga badacas aad iyo aad baa mahadsantihiin horta kolley waan ka tirsanay ururka waxa weeyaan marka hore gudoomiyaha ururkaan ahaa waayo badan baan isla soo marnay hawlo badan baan isla soo marnay dee maantana waxa weeyaan dee madaxdaydii kale markaaba ka tirsanay ururka ayuunba halkii aan kaga tegey kasii wada balse kamaan teginoo dee meel kagama maqniye imankana maxaa wax walba mustameed bay leeyihiinoo mustameedka waxaan ahay maxay tahay dee kooxda taas waxa weeyaan markaa horta aad iyo aad baan ugu faraxsanahay kooxdaydii waxa weeyaan in badan waayo badan isla soo marnay hawlo badan isla soo marnay waxa weeyaan dadkii dee aan madaxda mar u ahaa maanta inaan ana xubina aan ka tirsanahay maasha allah aad iyo aad baan ugu qanacsanahay marka waxaan oran karaa waxaas tacabkayga iyo dee madaxdii ka dambeysatay gelisayba ayaan aad ugu faraxsanahay gudoomiye ku-xigeenka shacabka gudoomiyihiina hore shacabka loo timo aad baa mahadsantihiin aad iyo aad baan ku hayay maamuus adinka iyo kooxdaba waxa weeyaan kolley kooxda inta dhaqanka waxaan filayaa dee hawlaheedii iyo taariikh nololeedkeedii iyo barnaamijkeedii gudoomiyaha hadda xilka haya ayadan ka soo warramay dee kolley caqabo badan hawlo badan dee isaga gudoomiyaha imaka iyo dee aniga ka horreeyeyba way naga soo gaadheen waxa weeyaan kolley waxa weeyaan hablaa dee ku jira ururka dee horta inteeda halkan fadhiya nina ma ogola inantoodii gabalku marku dhaco in guriga dhaafto waxa weeyaan sida aan u ogolayn inuu nina marku gabalku dhaco gurigooda inantu dhaafto ayaan iyagana dee loo ogolayn waxa weeyaan heer waxaanu gaarnaa mar inaanu xataa tagno hablaha in gurigooda u raacno aanu idhaahno annagaa mas-uuliyaddeeda iyo barnaamijka iyo hawlaheedaba inantay keeni halkaana keenayna kaana kaxaynayna waxa weeyaan kolley iminka dee bulshaynu dhex joognaa marka la dhaha urur iminka oday weyn ama islaantii guriga joogtay waxaa ururka sigiisa wax ku qabtaa muxuu qabtaa heesaan iyo muusigan iyo waxaad ka sheekanaysaa waxa weeyaan markaa wad aragtay waxa weeyaan meelaha qaar wax lagu qabsadaa showya lagu qabsadaa dharku noocyo kala yihiin yacnihii aad ka yaabayso waxyaabaha iminka jooga wadaadada maxay tahay wanaag filisi maxaa xumaan riibista waxyaabaha ugu badan ee iminka xataa ay eryadaan ka hadlaan waa iyaga waxaa laga yaabaa intay hudhaal soo galeen inay show joojiyaan inay joojiya inkastoo burcade kuweena hargeysa ka yar weyn yihiinoo cumar bin cafuuf iyo qolo kale xagga markaa waxa weeyaan kolley dee waxa weeyaan kulle hawlo badan ayaa soo maray wixii horta hadafkii iyo higsigaan lahayn maasha allah maanta aad iyo aad baan ugu qanacsanay waanu gaadhnay iminka halkaasaan kasii wadana insha allah anaguna aad baan idinku dhiirigelinaynaa mar labaad dhiirigelinta mar kasta waan idila garab taaganahay kolley waa wax aad loo jeclaysto koox dhalinyara in hidaha iyo dhaqankooda iyo xilligan waqti usoo baran si bulshadooda ay kusoo bandhigi lahaayeen aad baan idinka mahadcelinaa hidda kaabdije oo madaxdooda caawa aanay kala harin haddii gudoomiye hore teedii goosdabeed ka tahayba waxaa ku rodbaya dhigihoo madaxii mijaba waxaan soo qaban doonaa daantadii saddexaad ee barnaamijka in ku talagalay kooxduna ay noogu talagashay daantadaas waxay noqon doontaa waxaa qaaday fanaanka nagiib wadna kaabe sax daantadaasaan jecel inoo soo bandhigtaa
daawada aragnay dhaantadii giib wadna kaabe iyo kooxda say ciyaaris dhinaca hablaha iyo nabadaba isku dhacays waxaan idin hayaa oon goorahan balka dambe idin marinay abwaanada kooxda ubax khadar ayaa markale kusoo dhawaanay jecel hortina abwaanada inaan arko kacabka mar labaad waxay soo dhawaanay ubax soo dhawaanay horta marka hore aad baad mahadsantihiin markay xigta micnoo sidaa maahee gabayga waa laga dhiibaa waxay dhiibaa abwaankayga qoraagayga jooga waana gudoomiyaha ururkayga cumar axmed weeyaan hagaag marka cumar intuu qoruu kuu dhiibaadna waad ku luuqaysaa miyaa mise adiga qoro la taga qalinka waan ku luuqaysa waa lagu dhiibaa xagga luuqda weeyaan qoraaga iyo abwaanku waa cumar wasu kaya qariyay laakiin hore u sheegtaa halkaan abwaanba ka soo baxay gudoomiyaha haye luuqda noo bilaawi doontaa gabaygan horta waxaan u sameeyay ururkayga qaaliga hidakaab dhiiji kooxda xaggeeda marka ay ku xaraga shubtay xaada dhaqaaqda shimbiro xadreeyaan waa hidakaab dhiiji waxaan markii hore salaan guud gobanimo ku maran tahay markii xiga garteedii gabaygan aan idin wada galka aan ka saaray bulshada gudoosho dhagihiin ay fara dhalintii dalkayga deeqdii dhulkayga yartii ka caysiye dawadii naftayda waxaan daalka maansada iyo dooga jiiftay diiwaanka ugu dhigay dadka qaar lahayn oo deeq weyn sameysay imikaba ka digarago mar labaad isdaba qabo duulahaan hidakaab ka ilaali dowladda dusha guudka ku xambaar daymada wax ugu qabo darajada aqoonta iyo dadnimada ku sooriye hidakaab dhalina dhaqankoodii ka roorin hidaa reer Yurub laasan kristaaniya misri hasan surwaalka hoos u dhigayni balaatooni jiranayni hidakaab baa laga helayaa hablaheega la moodo hidihii ee biya asluubtii ku manasina hidakaab baa laga helayaa gacmo waa qalfafa qalbigayda salaamo baan leeyahay dhamaantiinba gabayga ay noogu luuqaysay maxay tahay ubax wuxuu inuu siiba falaqayntii dhaantadii aad alla ilahay waxba daydin qarsoona waxaan ku marba marka ka dambeeyay abwaanada markii aan arkooban yaabo waxa mas'ala abwaanada iyo gudoomiyina waxna loogu sheegay abwaan bas qarisay kala ku qabto gabayada u xurinay
isagoo keliya muuqda kooxda dhan baa qaratay qorahaba kama maqlay afkooda abaabada ugu jira waxa la yiri eriyadii ka abwa ay qaaday ubax waxa kamid ahaa habla xaraga leh hidda kaabda anaga u qarnaa adaga qardarta laga gudooba insha Allah وهذاك داوديال وحنا كل بدنا نحكي إيجينا وإنه كفتن يدانتوين كبي يسلو إذا سننا وبرنامج كأنه فلك يفجرها ويتطبق كان مرتين وجو هايين برنامجكو تتواصل حين كل صعداء هاند ميديا يولي بتنا هوتيل آدم مس أنا دوكم هاد علينا تيم كهاند ميديا تنا آدم مس هوتيل أنا لما كلا حرين عاوة aad baan ugu mahad celinaa dhamaantood kooxda iyaguna qayb lixaad daantooyin kan ku wada diirsaneen fadhiga xajin kara weyn gabaygii dhan walba barnaamijku la'aantiin muu qabsoomay baan leenahay mar koobaad mar labaad mar saddexaad aad baan idinka mahad celinayna in aanu sii socdo xagga hablaha barnaamijku wuxuu ku sii socdaa inuu sii gabagaboobaya gabagabadii barnaamijka inuu ku sii jirnaa gabagabadii ubax anagoo kaga bilaabaynaa ubaxay baljaaniska ayaad uga faa'iidaysanaysaa oo halkan ka salaamaysaa waxaan xaggan ka salaamayaa marka hore aabahay dhammaan ehelkayga intii muuqayga magacaygaba garanaysa waxaa kale si kaliya laaba ugu mahad celinaya ururkayga qaaliga ah hidda kaabdhiiji iyaguna aad bay u salaaman yihiin salaantaasoo dhan waxaa ka munaasiba gudoomiye ku-xigeenka ururka Naciime Axmed Xuseen iyo gudoomiyahayga qaaliga waa lafta kaliyan ka kacno dhib iyo dheef bana la qaybsaday noona dulqaata haddana qalad galo وعمر أحمد هري عمر دير بالنهاي لما أنتوا أدبوا السلامين يا إنكوا نمعيد بسم الله مركب كوباد وادين السلام يا أم الخير يا نمعه سلام كتير لكم حنك السلام يا هوايدا يا أباي لما فاميل كيدا أنتي مقعية مقيرانيسا سلام كتير وحنا هلكم نجمع هالعلني يا كوحدة يده الدكاب بيتشي gudoomiyaha ururkayga kooxda hidda kaabdhiiji cumar axmed hore intaasaan kaga soo gabagaboobay nimciyo malkheer laba hablood qaaliya aad baan idin salaamaya run ahaantii barta waxaan ka salaamayaa caawanika salaanteeda fara badan tahay waxaan halkan ka salaamayaa walaal hooyadii aabahay dhammaan familygayga meel kasta ay joogaan haddaan usoo noqdo bahdayda kooxda hidda kaabdhiiji waxaan aad salaan qaaliya kali laab ka soo gadan leeyahay gudooma cadowgiina oo noolaada sidoo kale waxaan u salaamayaa marta sharafta halkay noo joogta media duu sayidkuna aad baan salaamayaa sidoo kale halka waxa ku soo gabanaya walaalkii Mukhtaar photography adigana salaan kaliya laaba in barta ka gaarsiin dhamaantiin gudoomiyahayga Cumar Axmed Hurre isagana salaan gaara sidoo kale macallinkayga xariirkiisa sulub walaalkii Xamse Jaafar xeerlaaliyaha ururka dhamaantiin aad baan u salaamayaa bikran salaam dhammaantii horta aad iyo aad baan idin salaamayaa howlwareedana hawsha waday kolley nimcayo umal khayr sidoo kale bahda hanad media aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa barnaamijkan gaarka ah ee maxay telefoonka iyo fagaaraha kolley intaa haddaan kaga soo gudbo salaan runtii halkan caawa barnaamijkan halkan lagu soo macsuumay aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa dhammaan inta nagu soo macsuumtay iyo inta kale maxay tolay gacan ka geysatay hawlka geysatayba dhammaantiin waad mahadsantiin maan leenahay sidoo kale kooxda hidaha dhaqanka hidda kaabdhiiji aad iyo aad baan iyagana u salaamaya bismillaahi raxmaani raxiim horta dhammaan howlwadeenada hanad media aad iyo aad baan u salaamaynaa umal khayrna aad iyo aad baan ugu mahad celinaa nimcana aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa xubnaha kale hidakaab dhammaanteed naga maqan intan mooyaane barnaamijka soo qayb gashay mooyaane inta kale waxaan kula iyaguna dee daawan doona barnaamijka waxaan leenahay dee waan idin salaamaynaa waxaan kaloo halkan ka salaamayaa waxaan u maleynayaa ummadii isku dhaqanee isku diinibeynay waxaan kulay isku hal uma tahay waxa weye dhaqankay waa islaam horta ummadda caalamul islaam waxaan leeyahay asalaamu calaykum waa salaamaya baan leeyahay ummadda kale ee Soomaaliyeed ee aan waxaan ku leeyahay anagu dee fariin baan nahay maadaama aan dhaqankii nahay marka kooxdeeda markaan waan soo noqon doonaa laakiin horta dhammaan waxa laaliyo wixii dhaqan ku abtirsada waxaan leeyahay kooxda kaabdhiiji way iyo waxa weeye howlwadeenada barnaamijka fankiyo fagaaraha waxaan idin leeyahay ka salaamaynaa inta kooxaha dhaqanka waxa weeye ku abtirsata waxaan leenahay salaam baan idin soo marinaa tii dhaqanka ah hawada
idinna waxa weeyaan de wax kale idima hori kare waa mudantihiin baan idin leeyahay allah ku shaqo kooxda Hidakaab DG waxa weeye madax iyo majaba kolley way kala duwan yihiin waxa weeyaan madaxdeena waa saragteen xubniina waa saragteen marka inta iga maqaniyo inta fadhidaba waxaan leeyahay ciis korkiina ha ahaado dhammaanteena sharaf korkiina ha ahaato baan leeyahay marka intaasaan ku soo gabagabayn lahaa intaas waxay nooga barnaamijkeennii fanka iyo fagaaraha waxaan soo qabanayaa dhaantada ugu dambaysa oo dhaantada maantii ay nimco markii ugu horreysay doonaysay inay barnaamijkeennii ka qabto waa dhaantada saynici oo ay kooxda inagu soo afjar doonto barnaamijka barnaamijku wuxuu ka socdaa waa hotel aadamse magaalada hargeysa barnaamijka waxaad kala socotaan waa haanad media waxaan mar labaad iyo mar saddexaad baan ka celinaynaa dhammaan bahda aadams hotel iyo sidoo kale kooxda Hidakaab DG oo la-aantood barnaamijku aanu qabsoomeen farxad weyna ay noo tahay inaanu caawa aan maxay hayso barnaamijkaan kula qayb qaadina barnaamijkeygana ay martida aad baan idinka mahadcelin waqtigiina qaaliga loo suurta kuley wax walbana waqtiga waxay noqdaan aad baan dhammaantiin biyaha weliba isku dumaan idin mahadcelinaa waa rajeynaya kuna kan ka duwan oo kasii inay lagu socdo kala isageyn weyno insha allah idinka isku duwan